xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir oday dhaqameedyo siyaasiyiin iyo dadweyne isaga yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay dibadbax lagu taageerayo ansixintii baarlamaanka ee matalaada gobolka Banaadir ee aqalka sare. Banaanbaxa oo ka dhacay taalada daljirka Dahsoon ee Muqdisho dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana bulshada caasimadda ay u ballan qaadeen inay ka shaqeyn doonaan sidii Muqdisho ay u heli lahayd matalaad dhaba. maanta waxaan ka shaqaynay oo aan haynaa oo aynu u soo bannaan baxnay waa matalaadii waxay noo dambeeya maqaamka magaalada Muqdisho. insha Allah baarlamaanka tobnaad oo uu hogaaminayo halyeyga Soomaaliyeed gudoomiyaha sharafta leh Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ah min culumta diinta islaamka iyo maadigaba yaqaana oo ahliyay go'aan adag oo hogaamiye nagu hogaamiyay maanta inay yeeshaan matalaad gobolka Banaadir insha Allah inta uu gudoonka yahay annaguna aan golaha joogno maqaamka Muqdisho uu imanayaa biidmillaahi kariim. siyaasiga Salaad Cali Jeelo oo ka mid ah dadkii madasha ka hadlay ayaa sheegay in mudanayaasha golaha shacabka ay guteen waajibaad diini ah. baarlamaanka waxaan rabaa inaan u sheego dastuur iska dhaafe aayad quraan ayaad meel mariseen. ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayyuhalladina aamanuu kuwii alla iyo rasuul rumeeyow idaa qiila lakum tafassaxuu fil majlisi haddii laydin yidhaahdo majliska ballaariya dadka u fasaxa oo u ballaariya majliska aqalka sare oo isku cakiraay oo isagu mataqaanaa naftiisu u baahnay in lagu soo biiro majliskiyaa la ballaariyey waana aayad quraana ilaahayaana yidhi haddaad aayad quraana aad marka meel mariseen waa ogtihiinoo dastuurku wuxuu ku dhisan yahay wax allaala wixii shareecada ka soo hor jeeda waxba kama jiraan waay shareecada islaamka idinkoo fulinaya ayaad majliskii ballaariseen gobolka Banaadirna ku soo dhaweyseen xaqayna u lahaayeen ilaahayaana idiin sheegay waana fuliseen. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish oo madasha ka hadlay ayaa u mahad celiyay baarlamaanka Soomaaliya sida ay uga jawaabeen in gobolka Banaadir uu helo matalaad u qalanta oo aqalka sare ku aadan. madaxweynaha jamhuuriyadda codsigiisii waa luga mahad celinayna oo baarlamaanka ka codsaday matalaad u qalanta gobolka Banaadir in la siiyo. waxaa kaloon u mahad celinaynaa baarlamaanka oo si positive ah ama si uga jawaabay codsigii madaxweynaha iyo kii shacabka gobolka Banaadir oo aan ku taageeraynay codsiga madaxweynaha kana codsanaynay baarlamaanka inuu aqbalo codsiga madaxweynuhu u jeediyey. walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin baarlamaanku ayagoo dhegaystay banaanbixiinii taageerada ayagoo fahamsan duruufta iyo culaysyada idingaarka oo aad u dulqaadataan habeen iyo dharaarba ayagoo fahamsan waqtiga hadda lagu jiro ayay basaalkooda siyaasadeed ku ansixiyeen matalaadii gobolka Banaadir oo aan dhihi karno waa matalaad u qalanta. baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay xeerka matalaada gobolka Banaadir oo ay soo diyaariyeen guddi ka kooban labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana mooshin ay gudbiyeen xildhibaano ka tirsan kuwa federaalka suuragelisay in la kordhiyo oo laga dhigo 13 senatar in gobolka Banaadir uu ku yeesho aqalka sare. xeerkan oo dood badan dhaliyo waxaa ka soo horjeestay xildhibaano iyo wasiiro ka soo jeeda maamulada Jubbaland iyo Puntland waxaana ay ku tilmaameen mid ka hor imaanaya dastuurka dalka u yaala iyagoo madaxtooyada Soomaaliya ku dhaliilay inay ka soo shaqeysay qorshahan. Cabbaas Xuseen Muuse Home Cable TV Muqdisho.